السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمنا صاحبتي قيمة بدن ما أنت مقال عصب مقال كنا ما أنت وحين قاعدين عشر كنشنات ويندوز 11 عشر ككوري وحن كسو قاعدين يصير اللي بدله باك جراوند كمبيوتر سير كيسا يصير كله لوك سكرين كقاب اللي بدله عشر كنا ما أنت مركو وحين قاعدين sidee ayaan ku ogaan karnaa kombiyuutarkeena xogtiisa waxaan qaadanaynaa sida aan ku ogaan karno xogta kombiyuutarkeena hadday noqon lahayd windowska ku jira raamkiisa koorkiisa xogtiisa oo dhammaystiran hadiskiisa nidaamkaas oo kale qaabka aan ku ogaan lahayn ayaan ku baranaynaa okay aan isla soconno laba qaab marka taa waan u samayn karnaa waan u ogaan karnaa kow inaan dul tagno desktopkan ama meeshan ay ku qoran tahay this pc halkan inaan dul tagno right click inaan dhahno kadibna show more halkan ama inaan ku dhufano meesha ay ku qoran tahay properties kan haddii aan ku dhufano ama inta haddii show more aan dhahnana meesha ugu dambeysana properties aan kusoo bixayso labada meelba isku mid waay marka properties inaan ku dhufano ama alta iyo enter inaan isla taabano okay propertieska markii aan maaragtay ku dhufano waxaa inoo soo baxaya markii wejigana inoo soo baxaya fiiri hadda halkan waxaa inoo qoran desktop nameka magaca desktopka ama computerka noo qoran meeshan aan isla fiirin marka meelaha muhiimka waa processorkan iyo ramka waa fiiri hadda processorkan meeshan ay ku qoran tahay intel corekaygu waa i7 ujeeda core i7 waa okay cpu-ga ama gigahertzkiisana waa kan 2.8 gigahertz iyo 2.9 waa okay 2.90 iyo 2.80 waa okay ramkiisana waa 16 GB waa fiiri ramkiisu waa maxay waa 16 GB waa qaybtan ay ku qoran tahay device ID iyo product ID iyo waa maarata waxa iska leh waa maarata systemka iska leh okay bit fiiri system type waa maxay 64 bit way operating system kiisu waa 64 waa okay sidoo kale waxa dheeraad ku ah marka waa maarata pen and touch mujida support waa معناها ومارتا تاج سكرين واي سيدو كالينا ومارتا بين وكو شقين كراوا اوكي انتاس ومارتا قيبتو هوري قيبتان كالي ومارتا وحي قصيصا ويندوز كي قصيصا فيري هذا ويندو كجرو محو كليه هاي و 11 برو فرشن كفيري مركا 22H2 اوكي تاريخ دو لغو شوي فيري وجدا نوعا ويندوز كو سارنا واكا قصيدا سالو اوغادا اوكي xogtan marka ma dhamaystirna tusaale waa maarta hadda waxaan arkay koorka inuu yahay core i7 okay graphic cardkiisa ama gigahertzkiisa waan arkay sidoo kale waxaan arkay ramkiisaan arkay okay operating systemkiisaan arkay sidoo kale in waa maarta screen touch inuu yahay arkay okay sidoo kale window saaran 11 inuu yahay versionkiisa date lagu shubay iyo sidoo kale oo isbaldhiga iyo features kan oo maarata experience-ga waxa rabaa marka ani inaan ogaa karo storage-ka hadiskahayga sidoo kale hadiskahayga nooca uu yahay ma SSD ma HDD xogto faahfaahsan u baahanahay okay halkan oo iska soo xiraya marka close iska leeyahay waxaan imaanaya meeshan qaybtan hoose ee taskbar-ka ayaan imaanaya taskbar si kale loo raadiyo way jirtaa laakiin halkan ayaan hadda anaga nooga fudud taskbar-kan imaanayna meel bannaan aan ka raadsanayna qaybtan hoose kadibna waxaan leenahay right click qaybta midigta taabanayna kadibna waxaan ku dhufanaynaa meeshan ay nooga qoran tahay task manager halkan task manager halkan ayaan ku dhufan karnaa sidoo kale waxaan samayn karnaa halkan search button-kana task manager waa ku qori karnaa laakiin kan aan raacno hadda task manager aan ku dhufano okay task manager markii aan ku dhufano waxaa noo soo bixayso daaqadan noo soo bixayso daaqadan marabna marka waxaan kasii tagaynaa meesha ay ku qoran tahay performance halkan aan ka tagaynaa performance ayaan ku dhufanayna performance markii aan ku dhufano marka waa kan halkan waxaa nooga qoran CPU memory-ga diskiga YV-ga iyo sidoo kale GPU wax la yiraahdo ama graphical interface okay graphic-ga okay waxaan ku hormarayna marka CPU halkan aan ku dhufanayna okay fiiri koorka waa kan i7 mujida okay sidoo kale waa maarata gigahertzkiisa ama CPU-giisana waa maarata 2.80 waa okay halkan qaybtan memory-ga aan imaano
meeshaan fiiri 16 GB way 16 GB way memorygiisa waan isla fahanay okay halkan diskigaan imaano marka fiiri okay meeshaan ay ku qoran tahay max speed wujida 512 GB way maskaxda ama storagekiisa waa 512 GB typekiisa aan rabnaa marka qaybtan hoos u soo dago fiiri meeshaan ay ku qoran tahay type wujida SSD waa maarta hadiskaha noociisu waa maxay waa SSD anigu hadda hadiskaha noociisu waa SSD okay adigu marka meeshaas waxay ku noqon kartaa HDD sidoo kale SSD ay ku noqon kartaa hadba waa maarta computerodi ku kala duwan yihiin waa kan marka sida xogta maarta type-ka hadiskaha sida loo ogaado iyo sidoo kale capacity-giisa ama storage-giisa inta uu la eg yahay iyo nooca uu yahay waa ka qaybtana waa Wi-Fi-ga wixii markaas wireless ama internet-ka qoseeyo waa qaybtana sidoo kale GPU ayaa loo yaqaan ama waa maarta graphics-ka loo yaqaan okay halka fiiri Intel HD graphics waa maarta 620 okay waa kan marka sidaan ayaa loo ogaan karaa nooca hadiskaha uu yahay memory-gaaga intuu la eg yahay ama RAM-kaaga intuu la eg yahay CPU-gaaga waa maarta xogta oo complete waa kan sidaan ay ku ogaan kartaa even haddii aad u baahan tahay inaad maarata computer iibsato kale way ku saacidaysaa tan sidoo kale waa maarata computerkaaga haddii hadda aadan aqooninna hadda maanta wixii ka dambeeyo computerkaaga waad istaqaaniin waad isbarateen okay cashirkeena shanaad halkaa ayuu nooga egyahay sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan haddii ku cusubtay janalkeena subscribe inoo saar like-ta nagu dhiirigeli wixii faaliyo comment aad qabtana noogu reeb qaybta faallooyinka